أشهد سويدين لهيد وحوية محمدو محاد دولة تن لوغا لافي لوغو اعترافي واللي يروان ترانسيشن كي واكاد لافي كميل جاركي sababta oo aad wax in la isweydiiyo way iyadoo aan samayn institutions iyadoo aan nabad soo celin iyadoo aan samayn dalkii ka samayn waji wax isbedelay ayaa adduunyadu intuu yimi oo idin ka saarnay baa leeyahay way fahmi waayeen inay yiraahdaan war annagu waxaan qabanay ilaa kama saarine nimankan aan u tagno niraahno war waa naga saarteen laakiin ma garan waxaan looga saarteen haddaad si naga saarteen waxaan u baahanahay dhaqaale ilaa idinkaan laga saaray wixii dhaqaalihi iyagu markay saa ku yaraan dhaqaale waxay siiyeen ma jirto cidlaysa soo taageen dhaqaalihi baa maanta loo diiday oo sababta loogu diiday maxay tahay bankigii waxa magacaaban governatorihii banka guddigii banka ma magacaawna oo banki looma dhisin ninkaas oo aqoon badan buu leeyahay ninka hadda banka jooga maanta laakiin banki gacan lama siin soo u dhismi lahaa ma uu dhisna maxay ahayd xisaabihii guud si fiican uma dhisna minister of finance buu xisaabsan yahay kii xisaab baarihi xisaabi guudkii xisaab baarihi ma dhisna hanti dhowrka la yiraahdo ma dhisna maxay tahay xeeralaayihii qaranka oo ah meesha ay ka baxdo marka qawaaninta la sameeyo official bulletin ka meesha la yiraahdo waxa la jariida rasmi af carabeedkan lagu yiraahdaa waxa weeye marka xukun soo baxo iyada loo gudbiyaa dabeedna way faafisaa dabeedna way eegtaa inuu saxiisidii yahay wixii yahay dabadeedna markaas hirgashaa qaanuun ma hirgeli karo ilaa official bulletinka uu ku soo baxo oo kuwaas oo faafiyaaneen bahalkii baan ma dhisna maxkamadii baan si fiican u dhisnay ma garatay maanta wax la weeraray madaxweynaha gurigiisii qarankii meesha calaamad ahayd nabad sugidii baa la weeraray marka dawladda tan waxa arkaysaa meesha aynu maraynaa marxalad aad u adag oo khatiir ah oo qaranku khatar ku jiro oo dadka Soomaaliyeed ay leeyihiin Soomaaliya ma jiraysaa mise waa maya ajnabigu Soomaaliya dawladnimo inaan la rabin ba Soomaali u soo baxaysa mise markaas maxay ugu soo baxaysaa ciidamada loo dhisi lahaa oo la tayeyn lahaa hadii la rabo inay soo baxaan wax la soo celin lahaa maskaxda oo qoonta oo Soomaali leedahay brain drain-ki ku dhacay ayaa loo sameyn lahaa maskaxda inay soo noqoto dabadeedna la habayn lahaa su'aasha meesha imanaysa marka waxa weeye Soomaaliya dawlad dhisan bay ahayd qawaaninta Soomaaliyeed marka legal system-ka u noqotid waxay ka kooban tahay saddex waxay ka kooban tahay shariicadeena iyo dhaqankeenu lahayn iyo qaanuunka dadka kale kooda macaamilo sibeedee baynu u dhisnayd way su'aashu markaynu isku darsanay guddigii isu geynta qaanuunka la sameeyay waxay ka koobnayd niman Ingiriis iyo qolada tan Anglo-Saxon wax ku soo bartay iyo qolada Laatiinka ahayd oo Talyaaniga ahayd iyo shariicadii Islaamka iyo dadka xeer beedka yaqaan Soomaaliyeed qaanuunkeenu intaas uu ka kooban yahay waa la isu geeyay waxa la dhisay qaanuunkii lacagta lagu ilaalinayay tii lagu soo gurayay maamulkii askarta maamulkii maxay tahay militariga dhismihii publica nabadgelyada la dhowrayay waxa soo dhan meel bay yaaleen waxay ahayd dadkii aqoonta lahaa in la soo celiyo dhalinyarada soo kacaysana inay tababarto laakiin Soomaaliya waxay noqotay NGO lagu soo qaarto lacag oo lagu cuno meesha la yiraahdo Nairobi kuwa Soomaali jirkeeda oo ajnabi la shaqeynayana lacagtay soo qaadeen oo waxay rabaan iyaga iyo dadka ajnabiga inay lacagtooda cunaan Soomaaliya waxay noqotay markaa guri hoog oo ummadda Soomaaliyeed qarannimadeedii iyo dadnimadeedii lagu baabiyo NGO lacag soo gurata marka meesha ay marmarayna meeshaas weeye meel loo baahan yahay inaynu ka kacno oo qabiilkana dhinac iska dhigno kala go'ana dhinac iska dhigno u soo jeensano dadnimadeena iyo walaalnimadeena iyo tixgelino qarannimadeena soo noqon lahaa maanta waad aragtaa kiilka shanaad sida u horumartay Soomaaliya 25 milyan way xoolaheedu zakada laga soo saari kara waa $3 billion zakada islaan markaad u beydid adig badeeda waxay leedahay toonada ku jirta adduunka 46 marka loo qaybiyo meel ba ku jirta Soomaaliya waxay leedahay bad xeeb bay leedahay 3,330 kalluunka ugu badan ba ku jira adduunka xoolaha iyo ba ku filan Soomaaliya iyo beero marka waxay u baahan tahay dad Soomaaliyeed oo daacada oo dalkiisa dadka u soo noqda oo dadka u heeliya badii ba wasakh lagu shubaya waayaha Soomaaliyeed ba ay warsatay badii ba wasakh lagu shubaya kalluunkii ba la dhacaya jeelasha meel kasta waa aragtay waa ku xidhayiin jeela tagtid hadda ka halka joogtid waa kuwan jeelalkii dhalinyaradii ka wada buuxda marka qaran loo dhaqanaado baa loo baahan yahay oo dadnimadii la ka soo dheero war maxay Soomaaliya si u badbaadna maxamedow Soomaaliya waxay maraysaa meel khatiira
laba jid isgoyntood oo jar laga dhacayo ayay maraysaa ilaah waxaan ka baryaynaa inuu dad fiican u soo saaro